بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قدوميها قولها وكيلة دولة بوتلاند قدومي كحجينك اللباد يا قولها وكيلة لمان حبناها قولها وكيلة حبناها قدقة دورشوينك كميلجار كاي بوتلاند هالوذن هذا قولها مرتشرفتا صحافة dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane guddoomiye mudanayaal maanta taariikhdu waa 14 bisha 8aad 2018 kalfadhiga koob iyo afartanaad fadhigiisa 24aad kooramka hadda fadhiya waa 36 fasax iyo jirro waa 4 mudane maqnaanshuuna waa 26 waxaynu ku furanaynaa howl maalmeedkeena aayadaha quraanka kariimka ah waxaan inoo akhriyayaa xildhibaan fadiilatu sheekh maxamuud faarax warsame أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله عليه نصر إلى aad buu mahadsan yahay xildhibaan sheekh maxamuud faarax warsame ajar iyo xasanaad aan soo koobi karna Allah ka siiyo ayadaha quraanka kariimka innagana Allah inagu anfaco mudane guddoomiye waa kugu soo dhaweynaya si ay noogu furtid hawl maalmeedka ku soo dhaweey bismillaahir rahmaanir rahiim waan salaamayaa mudanayaasha baarlamaanka oo ugu horeeyay guddoomiye ku-xigeenku guddiga doorashooyinka iyo la taliyaasha sharciga iyo mudane xasan oo hadda hay'adaha caalamiga ku dhex jira laakiin salaan ka bacdi mudanayaal maanta ballantu waxay noo ahayd inaynu guddiga doorashooyinka warbixin ka dhagaysanno warbixinta aynu ka dhagaysanaynaana ay tahay tii shaqada aynu idmanay xasaanadda ku siinay inoo hayeen meeshay hadda marayso inay warbixinna ka jeediyaan guddoomiyaha guddiga caaqil cabdiraxmaan oo isaga laftiisu u soo jeedinaynaa haatan waxaan ku soo dhaweynayaa guddiga iyagoo aan rajaynayo inay warbixintooda u diyaarsan tahay inoona soo jeedinaya innana waa dhegaysanaynaa intaa ka bacdi wayna ka tegaya innagaa isku hadhaynaa innagaa taladeennii iyo ajandaheennii sii wadanaynaa فليتفضل كسو دوادا مدن قدوميه iyo mudanayaalba waxaan idin rabaa inaan idinku salaamo marka ugu horeysa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka dib waxaan rabaa warbixintayadu ama warkayaga maanta halkaan aan rabnay inaanu ka jeedino saddex dhinac uu qaybsan yahay marka koowaad waa warbixin ku aadan waxqabadkayagii teeramka inta aanu joognay iyadoo qoraalana waanu idiin qaybino waad haysataan marka labaadna waxa weeye khilaaf dastuuri ah oo aanu halkan idinku wadno isaga oo qoraal ah oo noo dhaxeeya guddiga doorashooyinka Puntland iyo guddiga doorashooyinka heer qaran isagana waa qoraal isagoo ah baanu idiin wadnaa idiinna qaybin doonaa qodobka saddexaad isaguna wuxuu noqonayaa safar aan ku tagay carrigaas Mareykanka North America meelo badan iyo socdaallo badan iyo kulamo badan iyo dadkii aan la yeeshay warbixintii iyo wixii aan ka soo qabtay iyo wixii aan kala soo kulmay iyo xiriiradii aan ka soo sameeyay inta iga qabsoontay iyo waxyaalaha aan sugayno warbixintu iyadu saddexdaas qaybood bay u kala qaybsanaysaa marka ugu horeyn waad haysataan waxaan u malaynayaa waad akhrideen warbixintayadii haddii iyada oo kooban la dul marayo iyo haddii intaa ay ku ekaanayso labadaba haddii la akhriyayo aan u dhiibanno xogayaha aan u dhiibo ha akhriyo aan u dhiibto guddoomiye xogayaho akhri iyo mudanayaasha golaha wakiilada magacaygu waa liibaan saalax maxamuud xogayaha guddiga doorashooyinka Puntland ugu horreyn waxaa maanta aniga si gaara maamuus iyo milgo weyn oo taariikhiya ii ah inaan imaado foolka golaha wakiilada Puntland
anigoo gudanaya mid ka mid ah waajibaadkayga halkanna ka jeedin doona warbixinta golaha guddiga kumeel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland waxa xubin kasta oo ka mid ah golaha wakiilada halka fadhida waxa hortaala waraaqdan hortayda taala oo aan rabo inaan akhriyo ay ku qeexan tahay warbixinta golaha guddiga kumeel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland bismillaahir rahmaanir rahiim mudanayaal iyo murwooyin guddiga kumeel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland oo ah hay'adan guud loo aasaasay oo maamul ahaan iyo maaliyad ahaanba madax bannaan lehna awoodda ka go'aan gaarista howlaha loo igmaday guddiga doorashooyinka kumeel gaarka ah ee Puntland oo ah hay'ad loo xilsaaray qabashada doorashooyinka golayaasha deegaanka Puntland iyo gaarsiinta dalka nidaamka xisbiyada badan si looga guuro nidaamkii Puntland waqtiga dheer ay ku soo dhaqmaysay ee ahaa wax ku qaybsiga habbeeleedka looguna guuro doorasho hal qof iyo hal cod ah sida uu qabo dastuurka Puntland mudanayaal iyo murwooyin laga soo bilaabo 14 Febraayo 2016 oo ahayd xilligii guddiga doorashooyinka kumeel gaarka ah ee Puntland la magacaabay guddigu waxa uu sameeyay waxqabad ballaaran oo dhinacyo badan taabanaya guddigu wuxuu dib u eegis ku sameeyay xeerarkii hore ee ururada siyaasadda iyo kuwa doorashooyinka golayaasha deegaanka guddigu wuxuu sameeyay qorshe faahfaahsan oo uu ku shaqaynayo bilow ilaa dhammaad roadmap inkastoo duruufaha jira awgood uusan u socon sidii loogu talagalay 3 guddigu wuxuu daahfuray hannaanka geedi socodka doorashooyinka iyo nidaamka xisbiyada badan ee Puntland 5tii bishii 10aad 2016 guddigu wuxuu diyaariyey dhammaanba macluumaadkii looga baahnaa furashada ururada siyaasadda lambar 25 bishii 3aad 2017 guddigu waxa uu ku dhawaaqay in la furan karo ururada siyaasadda Puntland lambar 6 guddigu wuxuu xiriiro iyo kulamo toos ah iyo kuwa aan toos ahaynba la yeeshay beesha caalamka kuwooda daneeya barnaamijka dimuqraadiyadda Puntland sida UN-ka EU-da si ay u taageeraan nidaamka xisbiyada badan ee Puntland lambar 7 guddigu wuxuu warbaahinta Puntland xilliyo kala duwan ka baahiyey fariimo lagu wacyigelinayo bulshada Puntland iyo furashada ururada siyaasadda Puntland lambar 8 guddigu wuxuu la kulmay dhammaanba qaybaha kala duwan ee bulshada Puntland si loo socodsiiyo barnaamijka nidaamka ururada siyaasadda Puntland lambar 9 guddigu wuxuu qabtay shir wada tashi ah 11kii bishii 6aad 2017 oo ay ka soo qayb galeen madaxda sarsare ee dowladda Puntland sida madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka guddoonka baarlamanka maxkamadda sare garyaqaanka dowladda xafiiska xaquuqul insaanka siyaasiyiin badan iyo bulshada rayidka ah si ay hormuud uga noqdaan barnaamijkan una furtaan ururo siyaasadeed gabagabadii shirka waxaa ka soo baxay warmurtiyeed ka koobnaa 6 qodob in la yareeyo waxaa ka soo baxay 6 qodob oo kala ahaa ay ugu horeyso in la yareeyo khidmadaha diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo asxaabta laga qaado in la yareeyo tirada taageerayaasha ururadu ku yeelanayaan gobollada Puntland in la sameeyo maxkamaddii dastuuriga ahayd ee Puntland sida ugu dhaqsaha badan in la kordhiyo muddada diiwaangelinta ururada siyaasadda Puntland oo xilligaa ku ekayd 25 Juun 2017 in la socodsiiyo hannaanka geedi socodka xisbiyada badan ee Puntland iyadoo aan lagu xirayn xilli doorasheedka xukuumadda iyo baarlamanka hadda jira ee 2019 in dowladda Puntland shir u qabato beesha caalamka kuwooda daneeya barnaamijka doorashooyinka Puntland qodobka 10aad guddigu wuxuu heshiisyo is-afgarada la saxiixday hay'adaha kala ah Bunsa BDRC iyo Zayfarwal 11 guddigu wuxuu 25 bishii 9aad 2017 shir isugu keenay daneeyaasha siyaasadda Puntland kaas oo ku aadanaa sidii loo dardargelin lahaa nidaamka xisbiyada badan ee Puntland 12 guddiga doorashooyinka Puntland wuxuu qabtay shirar
aad u fara badan oo ku saabsan wacyigelinta bulshada puntland ee nidaamka xisbiyada badan kuwaasi oo ka dhacay inta badan gobollada iyo degmooyinka puntland 13 guddigu isagoo ka duulaya shirkii wadatashiga ahaa ee 11kii juun 2017 wuxuu dhimay khidmadaha laga qaado ururada siyaasadda iyo xisbiyada isagoo la kaashanaya golayaasha awoodda u leh 14 guddigu wuxuu diiwaan geliyey 5 urur siyaasadeed oo ilaa hadda la siiyey aqoonsi ku meel gaara guddigu wuxuu bilaabay diyaarinta qorshe istaraatiijiyadeed oo 3 sano ah oo guddigu ku shaqayn doono waxaana la soo bandhigi doonaa haddii alla idmo dabayaaqada bishan 8aad ee aynu haddeer ku jirno tala soo jeedinta guddiga kumeelgaarka ah ee doorashooyinka puntland ugu dambayntii guddiga doorashooyinka kumeelgaarka ee puntland wuxuu soo jeedinayaa talooyinkan soo socda 1 in doorka hoggaaminta barnaamijka nidaamka xisbiyada badan dowladdu qaadato 2 in la dhiso maxkamaddii dastuuriga ahayd ee puntland 3 in dowladdu u qareento barnaamijka una bandhigto adduunka 4 in dowladdu dhaqaalaha nidaamku u baahan yahay qaybteeda qaadato 5 siyaasiyiinta iyo bulshada rayidka waxaa looga baahan yahay inay qaataan doorka kaga aadan hirgelinta nidaamka xisbiyada badan ee puntland 6 in dowladda puntland iyo shacabkeedu ay tala midaysan ka yeeshaan xisbiyada siyaasadeed ee lagaga dhawaaqay magaalada muqdisho maadaama ilaa hadda xisbiyadii siyaasadeed ee puntland aysan diyaarsanayn 7 waa in dowladdu gacan ka geysataa barnaamijka hubinta kala saaridda ururada siyaasadda oo ilaa hadda u taagan dhaqaale la'aan mudanayaal iyo murweyn ugu dambayntii guddiga doorashooyinka kumeelgaarka ah ee puntland isagoo ka duulaya shaqada loo igmaday ee uu dastuurka puntland u qeexay waxaa ka go'an in puntland uu gaarsiiyo nidaamka xisbiyada badan iyo in dalka ay ka dhacdo doorashada golayaasha deegaanka puntland oo ah mid ku dhacda nidaamka hal qof iyo hal cod taariikhdu marka ay tahay bisha 9aad 2019 halkaas oo ay ka soo bixi doonaan 3 xisbi siyaasadeed ee puntland aad iyo aad baad u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad gudoomiyaha guddiga meelgaarka ee doorashooyinka puntland mudane cabdiraxmaan diiriye samatar ayaa ku saxan aad iyo aad baad u mahadsantihiin بسم الله الرحمن الرحيم waxaan kaloo akhrinayaa warqadan kale oo iyadana guddigu soo gudbiyey oo ku socota golaha wakiilada dawladda puntland gudoomiyaha golaha wakiilada dawladda puntland mudane axmed cali xaashi ku golaha wakiilada dawladda puntland ujeedo khilaaf dastuuri ah oo u dhaxeeya guddiga kumeelgaarka ah ee doorashooyinka puntland tibek iyo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka niyek mudanayaal guddiga kumeelgaarka ah ee doorashooyinka puntland ee tibek wuxuu walaac xooggan ka qabaa xafiiska niyek ay puntland ka furanayso iyagoo ku salaynaya qodobadan soo socda 1 waxaa si cad isaga hor imaanaya awoodaha iyo xilalka dastuurka dowladda federaalka ee soomaaliya iyo dastuurka puntland ay kala siinayaan labada guddi 2 sharciga niyek waa guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee soomaaliya qodobkiisa 14aad faqraddiisa 1aad wuxuu tilmaamayaa in niyek ay mas-uul ka tahay doorashooyinka heer degmo heer gobol iyo heer federaal taasi oo ka hor imaanaysa xilka iyo awoodaha tibek ee ku xusan sharciga lagu dhisay tibek qodobkiisa 7aad faqraddiisa 1aad oo awood u siinaya qabashada doorashada golayaasha deegaanka iyo tan golaha wakiilada puntland lambar 3 waxaa kaloo si cad isaga hor imaanaya sharciyada ururada siyaasadda puntland iyo kan xisbiyada siyaasadda soomaaliya sidoo kale waxaa iska hor imaanaya sharciyada doorashooyinka golayaasha deegaanka ee labada guddi iyo dhammaanba xeerarka iyo habraacyada labada guddi lambar 4 waxaa jiray kulamo iyo wada hadallo aanu la yeelanay niyek annagoo danaynayna in sharciyada iskhilaafsan xal loo helo kuwaasi oo dhammaan dhanka niyek ka socon waayey lambar 5 ugu dambayntii waxaa dhacday in ururo siyaasadeed oo tibek ay horay uga diiwaan gelisay xafiiskeeda urur ahaan
ay xisbi ahaan isiga diiwaan geliyeen xafiiska niyeek ee xamar taasi oo dhaawac ku ah shaqada iyo sharciyadda tibek guddiga doorashooyinka ku-meelgaarka ee puntland tibek waxay walaac ka qabaan in iyadoo aan waxba laga qaban dhammaanba qodobada kor ku xusan isla markaana aysan jirin wax wada shaqayn oo ka dhaxaysa labada guddi in guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Soomaaliya ay xafiis ka furtaan Puntland xafiiskaasi oo si toos ah uga hor imaanaya dastuurka Puntland sidoo kalena dhaawac ku ah habsami socodka nidaamka xisbiyada badan ee Puntland ugu dambeyntii mudane gudoomiye iyo mudanayaal waxaan si sharaf leh idinka codsanaynaa in dawladda Puntland wax ka qabato arrintan dastuuriga ah ee dhex taala labada guddi iyo walaaca guddiga doorashooyinka Puntland ee Tibek ay ka qabaan xafiiska Niyeek ay doonayso inay ka furato Puntland iyadoon waxba laga qaban dhammaanba qodobada aanu kor ku soo sheegnay aad iyo aad baad mahadsantihiin